walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay mar kale midnimo dhaqdhaqaaqaasi baaqa uu soo saaray waxa uu daahan yahay oo ujeedadiisu tahay in la xoojiyo wadahadallada iyo isku soo dhaweynta ummadda soomaalida iyo sidii markaasi loo heli lahaa midnimo macna leh oo waxtar labada dhinacba u leh waxa weeyaan labadii gobol ee 1960 midnimada gaadhay markii ay ka kala xoroobeen gumaystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska Hargeysa iyo Muqdisho dhinacyada kale ee Soomaaliduna ay berrito ku soo dhiikan karaan oo lagaga nasan karo wixii dhibaatooyin iyo kacaakuf dagaalo sokeeye iyo dib u dhacyo soo waajahay ummadda Soomaalida ujeedka aad ka leedihiin maxay tahay marka 30 sanadood sidan iminka ay Soomaalidu ahayd gaar ahaan labada gobol dadka ku nooli laguma sii jiri karo oo ummadnimadu kuma sii jiri karto marka la eego dhibaatooyinkii waaweynaaye dhacay iyo kuwa iminka labada dhinacba gudahooda ka jira iyo isbedelada waaweyn ee gobolka Geeska Afrika ka ilma roganaya ee ka dhacaya oo ah kuwa u baahan in la helo jiha cusub oo ka duwan wixii 30 sano u dambeeyay lagu jiray waxaad soo hadal qaaday in aad doonaysaan in la wada hadlo yaa wada hadlaya marka ma xukuumadaha mise shacabka walaalow anagu xukuumadaha waa taageeraynaa wixii wanaaga ee ay wadaan labaduba iyo wada hadallada ay wadaan culays baanu ku saaraynaa inay macno u yeelaan oo dedejiyaan laakiin anagu halkaa uma soconno xukuumadaha la igmaday baa hawshaasi u taallaa annaguna waa ku taageeraynaa laakiin annaga doorka yagu waxa weeyaaney waa fikir iyo aragti abuur ku saabsan jidkaa cusub oo dadka waxaa dhex galay kalsooni darro fara badan shaki fara badan kala fogaansho fara badan doorkii bulshada rayadka iyo xagga hoose inaanu anagu ka shaqayno oo ka dhiirigelino isku soo dhawaanta iyo wax wada yeelashada ummadda weeye dareenka yagu sidee isugu soo dhaweynaysaan dadka mar haddii aad UK kaga dhawaaqdeen dhaqdhaqaaqan baaqan aad halkaa kasoo diraysaan walaalow gudihii waanu joognaa oo xubnaha iyaga ugu badani waxay ku sugan yihiin Hargeysa Muqdishoy joogaan Burcay joogaan waxay joogaan waddanka gudihiisii dabcan dibaddana jaaliyad badan oo saameyn waddanka kule baa joogto waanu joognaa marka ayaan darada ugu weyna jirtaa waxa weeye halka noogu qumaneyd in la isugu tagaa ay ahayd waa Hargeysana lagama ogola fikir ka duwan fikirka halkaa yaal ee ah gooni isutaagu waa muqaddas dood labaadi ma taalo qofka la yimaadana xabsi baa loo dirayaa marka si qarsoodiye baanu gudaha uga shaqaynaa oo saliskooda iyo unugyadooda iyo bay leeyihiin hawshooda way wadaan qadiyadan gooni goosadka Somaliland muddo 30 sanadood ayay soo socotay dad badan oo halkaa ku noolna waa ay ku qanacsan yihiin oo waxay arkaan inay faa'iido badan ka heleen dhanka kalena waxay rumaysan yihiin in midowgii hore ay ku hongoobeen oo dhibaato ay kala kulmeen horta midnimadu sideedaba shay xun maaha oo midnimadu waa wax wanaagsan waana halka maanta caalamku u socdo midnimo iyo iskaashi midnimada 60kii Somaliland oo qurihii kuma hongoobin Soomaaliya oo dhan baa ku hongowday ma ahayn dhibaatadu midnimada waxay ahayd sidii loo maamulay ma dhibaato kala horseedaysan marka maya waxaa la geli karaa midnimo ka duwan tii hore oo nooc kala ah iyada oo la ballaqayo albaabada fursadaha waaweyn ee dhaqaale ee shaqo abuur ee amni ee difaac ee siyaasadeed iyo halka maanta caalamku u socdo oo ah waxdad iyo iskaashi si hore loogu maro maxamed baashe adiga laf ahaantaada waxaad ka mid ahayd dadkii u ololeyn jiray muddada dheer gooni goosadka Somaliland waxaan leeyahay jagaad raadsatay jagadii baad soo weysay markaas kadib baad barnaamijkan kale bilowday marka sidee lagu aamini karaa walaalow anigu ma jirto jaga aan doontay xil aan doontay ma jiro waa ku kuteen waa warka suuqa kaasi laakiin waan la shaqeeyay Somaliland iyo xukuumadihii ka jiriba tan ugu dambeysay raggii wax ka dhisay baan ahaa laakiin maskaxda qofku dhagax ma aha meel yuuro oo aan fikir cusub iyo aragti cusub abuuri karin haddii uu arko sidan lagu socdaa inay khasaare badan keenayso si ka fudud oo kalena dhinac taalo wax diidayaa ma jiro in dhinaca loo dhaqaaqo wanaagu yaallo maxaa igu aaminayaa waxay ku xidhan tahay sida aanu u shaqayniyo waxaanu la nimaadno maxamedow muddo dheer baad sheegtay in aad la soo shaqaynaysay xukuumadihii kala gedisnaa ee Somaliland iyo tan ugu dambeysay waliba ee Musabbixi marka intii aad baaq idaacad marsiin lahayd maxaadan iyaga ula fariisan weysay oo warka aad doonaysay ugu sheegi weysay hore ayaanu arrimaha uga daalay oo intaan aanay noqon tan wada hadallada iyo midnimadaba aan la gaadhin ta gudaha ee Somaliland ayaa noo suurtageli weyday inaanu wada fadhiisano oo ay wax naga dhageystaan oo albaabada ayay naga xidheen kalitalisnimo darteed arrintan midnimaduna run ahaantii arrin lagama ogol yahay Somaliland gudaheeda in lagaga sheekaysto oo lagaga doodo oo lagu soo qaado suurtagal haatan kama aha